bariya ruushka waxa ku dhacday meel oo tiyaatar ayagoo meel tiyaatar ku jira koox jabhad oo mucaarad ayaa tiyaatarkii ku afduubtay dadkii ku jiray markaasay wax bixi iyo wax soo gali male arkaasa naxdin iyo walwal dadkii way afduubayeen dadkan way hubaysayiin qaar ay dilayaan xabaday kor u ridaayaan adi 24 saac ayaa xaaladaas lagu jiray markii dambe jabhadii meesha waa laga saaray dadkii intii dhimatay moogi intii kale waa laga soo badbaadiyay soo baxeen markaas waxay ku taliyeen dadkii meeshaas joogay oo ruushka ahaa 24 saac dadkii ku jiray tiyaatarka maskaxdooda jug xoog la gaartay dhakhtar oo xagga nafta ku takhasusay dadkii hal marsiyo oo hala sheekaysto xalayseed noqotay maxaa dareentay cabsi inta elaba waa 24 saac gudood inaga meeqan tumooya soddon sano iyo ka badan marka miyaynan u baahnayn marka dhakhaatiir in laynoo geeyo walaal Soomaaliyeed bal horta rafaadkii idin gaari bal ka sheekeeya taas waxay daawo ka tahay qofka hadduu dhibaato uu gaaro haddii wax ka neefiye la waayo oo lagu caburiyo lay wuxuu noqonayaa uu isla sheekaysanaa cuqdatu nafsi ku dhacays laakiin markuu sheekeeyo salaadina waxa badan mobilada gacanta marmar iska qaataa waa la isdhaca dadkuna mushkiladina ugu dhacday meesha aan gaarnay sidii waxaan noqonay dugaaga xoolaha oo kale xoolaha hadii uu wax soo weeraro looda ama geela ariga wax dugaaga haduu soo weeraro oo mid kamid uu qabsado inta kale maxay sameeyaan ama way cararaan ama xagga intay istaagaan ayay soo fiirinayaan sida loo cunaayo walaalkood ee kama celinayaan hadda inaga saas ma noqonno qofa bakaaraha dhexdiisa lagu qabana waa lagu baaranaya mobilka soo bix intii u dhaweyd intay cararaan ay xagga istaagaan isbaaru ku dhacay muujeeda isbaaru ku dhacay war miya way badan yihiin ma hal mar lagu soo xoomo tuugadan laga celiyo ma la hadla sidii xoolaha banaanka laga istaaga markii banaanka laga istaago qofkii wixii la qaadanay laga qaato oo ay ka tagaan tuugadii oo uu soo baxo dadka soo dhaxgalo ay ku soo xoomayaan maxaa laga qaatay maxaa ka gal wixii laga qaataan laga qaatay war miya marka dadku markay mushkilo muddo ay ku jiraan nafsiyaadkooda iyo maskaxdoodu caadi ma noqonayso saas daraadeed wax yar ayaa laga yaabaa inuu ka xanaajiyo xaaladda aynu ku jirno marka waxay tahay tiyada quraysh aan ku sheegayno oo kale inaan dhaahno soo nabi muxuu yaa weexa quraysh laqad akalatum alharb dagaal ayaa dhameeyay quraysh moogtahay inaga saas maniino yaa weexa Soomaaliyiin laqad akalatum alharb dagaal dhameeyay cidi marka maanta u soo tafaxaydanaysa dagaal hor leh laakiin alxamdulillah dadku waxa way inta ilbaxeen yaa wax u dhaqaaqaya iyo wax dagaal wax ku falaaya ma jirto waxoogagan hadda arkaysaan dadku tartiibtooda isaga dhaqmaayaan dadku waxay fahmeen dantoodu inayna ku jirin qof ku danaysanaya inay u daneeyaan oo siyaasadan fiin markay siyaasad la isku haayo ninka siyaasiga ah qabiilka wuxuu isticmaalaa oo kali ah jaranjaro uu guriga ku fuulo markuu darbiga saaro oo jaranjartii uu ku fuulo meesha koro uu koro hadduu rabo jaranjartii laadu ku kiciyaa dhulku ku soo ridaaya ilaa kor uu ku fuulay moogtahay dib dambe looma arkaayo kor suu ugu maqan yahay kuwii kor isla fuulay marmar inta isku dhacaan korkii laga soo tuura dhulku imaana jaranjartii oo dhowr sano ka hor uu dhulka ku riday yuu soo qaadana meeshuu raba inuu saaro marka hadana oo yiraahdo reerkeeni si xun loo galay waxba looma gelin adaa lagu galay maxaa jira markaad kor ku maqnayd adii la dhuuqay adii ma waxna siisaanaga kisti marka weysay aan dhahaamiya kale jaranjar hadana ay noqda marka dadku way diideen inay jaranjar noqdaan waati markaas aan ku celin jirnay oo dadku intay wax fahmeen waan soo jeedaa indhaha faraha gelinti Soomaa dadku way soo wada jeedaan marka cid indhaha faraha laga gelin karo ma jirto waxay ku roontahay marka walaaltinimo